noloshu waxay noqotay mid degdeg badan, mashquul ah oo buuq isku furan ah. laakiin su'aashu waxay ka taagan tahay, xaggee ayaad naftaada la aadinaysaa oo la cararaysaa? haddii uu xidhiidhka Ilaahay uu dayacan yahay, salaadu ma tahay wax ku jira jadwalkaaga mise waa aad ka booday? waxa laga yaabaa in guusha iyo nasteexada aad raadinayso ku sugan tahay meel aad adigu ka ilowday baada. su'aalahan waxaan ku dul istaagaynaa muuqaalkeena maanta. magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud, halkana waa Soosaar Media. fadlan muuqaalka subscribe si ay dad badan ugu gaadho, like saar, share gareena si ay uga faa'iidaystaan dad badani. ogtahay in salaadu ay tahay xiriir toos ah oo aad la yeelanayso Eebbe? goorma ayaa kuugu dambaysay in aad salaada ku oydo si qalbigaagu u nadiifoobo? haddii aad dhibaato la kulantay, yaad la hadashay? ma dadka mise Ilaahay? salaadu waa aasaaska nolosha muslimka. shanta tooke ee ku jiidanaysa in maalintaada aad Ilaahay ku barido, kuna ducaysato, naftaada xakamayso, rajo yeelato xilli mugdi ah, oo kalena aad samir u yeelato imtixaanaadka nolosha oo diyaar u ah wicitaano rabbaani ah. waxaa muhiim ah inaan salaada aanan u arkin waajib keliya, balse sad lagu nadiifiyo qalbiga, iso sabir laguna helo guul ruuxi ah. gabagabada barnaamijka, ha naga iloobin inaad muuqaalka subscribe dhahdid.